waxaan hubaa saaxiibayaal badankiinu inaad adeegsataan aaladda Facebook balse sidoo kale waxaan hubaa saaxiibayaal badankiinu inaydan ogeyn qayb qarsoon oo aaladda Facebook ay leedahay oo xasaasi ah oo loogu talagalay inaynu adeegsano dadka Facebook isticmaalaya ay adeegsadaan waxaan rabaa saaxiibayaal inaan idinkula wadaago muuqaalkan maxay tahay qaybta xasaasiga ah ee Facebook uu leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan idinkula wadaago saaxiibayaal maxaa qaybta loogu talagalay in loo adeegsado ugu dambeyn waxaad la wadaagi doonaa saaxiibayaal sida aad u adeegsan kartaan muuqaalkan gadaashiisa ama muuqaalkan dabadiisa haddii aad u baahataan ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa saaxiibayaal si aynu isugula fahanno qaybtan qarsoon waa inaan marka hore fahanaa internetka qaybaha loo qaybiyo internetka waxaa loo qaybiyaa saaxiibayaal 3 qaybood qaybta koobaad waxaa la yidhaahdaa surface level internet ama internetka qaybtiisa sare qaybtan waa qaybta in wax kasta oo ku jira ay free yihiin qof kasta oo internetka isticmaalana uu heli karo tusaale muuqaalkan YouTube ayaan kusoo gudbiyay qof kasta oo YouTube-ka soo booqdaa muuqaalkan uu daawan karaa ama qof kasta oo dunida dacalku doonaha ka jooga internet adeegsanaya hadduu YouTube yimaado muuqaalkan uu daawan karaa qaybta labaad ee internetka waxaa la yidhaahdaa saaxiibayaal deep web ayaa la yidhaahdaa deep web qaybtan waa qaybta ugu ballaaran internetka saaxiibayaal xogaha ku jiraan ay yihiin xogaha ugu ballaaran internetka qaybtan waa qaybta wax kastoo ku jira aanu qof kasta heli karin laakiin ay ka hor istaagayaan inuu email iyo password geliyo tusaale aniga waxaan isticmaalaa Facebook dad baan kala xiriiraa WhatsApp baan isticmaalaa dad baan kala xiriiraa Instagram iyo Snapchat iyo TikTok iyo kaba soo qaad waxyaabaha soo dhan inaan isticmaalo inaan bangi leeyahay ka soo qaadan email iyo password ku galo haddaad u baahato waxyaabaha inaad ogaato waxaad u baahantahay inaad helayso emailkayga iyo passwordka Facebooka ama Messengerka ama Twitterka ama kuwa kale ee la midka ah soo qaybtan la yiraahdo deep webku waa qaybta ugu ballaaran internetka xogaha ugu ballaaran ku jiraan laakiin ma aha qayb wax kasta ku jira qof kasta uu heli karo si aad u hesho xog ama wax qofka leeyahay waa inaad email iyo password geliso qaybta saddexaad ee internetka waa qaybta ugu xasaasisan internetka waxaa la yiraahdaa markaa dark web ama internetka madow qaybtan way ka duwantahay gabi ahaanba labada qaybood ee horaan ku tilmaamay qaybtan dadka isticmaala qofna ma yaqaano qofka kale qofna ma ogaan karo qofka kale si aan tusaale yaro soo qaato si fudud ugu fahanto aniga haddaan imka YouTube-ka booqdo ama Facebook-ka booqdo kadibna ciwaan samaysto Facebook uu yaqaan aniga markaan Facebook website-kooda ama app-kooda isticmaalayo waxay arkayaan dunida meeshan ka joogo haddaan numberkayga ama emailkayga geliyo waxay haystaan xog xasaasi oo private oo aan anigu leeyahay laakiin internetka madow marka la eego waxyaabahaas oo dhan kama shaqeeyaan website-yada aad booqanayso kuma garanayaan cid aad tahay website-ka cid samaysay adigu garanmaysid qof hadduu fariin kuu soo diro garanmaysid adiguna ka fariinta aad u dirto ku garan maayo qaybtan marka waa qaybta ay internetka ka isticmaalaan hackeriska iyo dambiilayaasha internetka dadka daroogada iyo mukhaadaraadka ka ganacsada ee sida aan sharci ahayn ku geliyo wadamada iyo sidoo kale waa qaybta militariga iyo dadka doonaya waxyaabaha ku wada hadlayaan inaan la ogaanin ay internetka ka isticmaalaan haddaba saaxiibayaal Facebook waxa uu leeyahay qayb loogu talagalay inay isticmaalaan dadka jooga internetka madow ogow markaa internetka madow waxa loogu talagalay waa maxay waa dad doonaya inaan la ogaanin waxa internetka ka sameeyaan marka Facebook wuxuu leeyahay qayb internetka madow ah oo markaa loogu talagalay dadka internetka madow inay isticmaalaan marka intaanaan u gudbin sababta ay u isticmaalaan iyo xogaha waxaan rabaa shaashada computerka inaan ku tusiyo balse aad ila aragto qaybta madow ee Facebook uu leeyahay qaybta internetka madow Facebook ku leeyahay haddaad shaashada computerka eegto waxaan joogaa imka Facebook oo adiga arkay Facebook laakiin haddaad halkan u fiirsato qaybta maxaa ku qoran Facebook iyo qoraalka dheer aan calaamadiyo qoraalka dheer ugu dambeyn ay u dambayso onion soo waxaad arkaysaa facebook.com ayay ahayd imka haddaan halkan tago oo facebook.com ku qoro waad arkaysaa inay kala duwan yihiin waa kan Facebook dark webka waa kan Facebook caadigana waa kan facebook.com adiga arkaya kan haddaan iska soo xidho ka internetka madow adiga arkaya IP addresskiisu waa sidaa haddaba maxaa qaybtan Facebook qaybtan internetka madow ee Facebook loogu talagalay waxaa loogu talagalay saaxiibayaal qaybtan madow ee Facebook waxaa loogu talagalay in dadka isticmaala Facebook laakiin jooga wadamada laga xiray Facebook ay Facebook ka isticmaalaan waxaa jira saaxiibayaal dhowr wadan oo dunida ka mid ah oo Facebook uu ka xiran yahay oo dawladaha ka taliya wadamadaas ay iska xireen Facebook tusaale wadanka Shiinaha dadka jooga ma isticmaali karaan Facebook sababtoo ah dawladda ayaa ka xidhay wadanka Iran oo kalena waa wadan la mid ah
haddaba shirkadda Facebook qaybtan waxay u samaysay dadka jooga wadamadaas hadday u baahan yihiin Facebooka galaan inay isticmaalaan qaybtan internetka madow ee Facebooka marka taas horta waa koobaad lagu talagalay mid baa markaa muhiimad ay tahay saaxiiba inaad ogaataan adeegyada kale ee laga helo internetka madow intooda badan waxaa loogu talagalay inaan la ogaan qofka laakiin Facebooka qaybtiisan internetka madow waa qayb aan loogu talagalin qofku isagoo aan la garanayn inuu isticmaalo ee loogu talagalay qofku isagoo aan la garanayn meesha uu joogo inuu isticmaalo imka anigu maxamed haddaan ciwaankayga Facebooka ka galo qaybtan madow internetka Facebook markaba uu garanaya uu garanaya inaan maxamed ahay uu garanaya emailkayga passwordkayga inuu hayay uu garanaya markii hore wadankan joogan kasoo booqan jiray laakiin markan ma garanayo meesha aan joogo marka waxa weeye waan isticmaali karaa dadkan hore la xiriiri jiraan la hadli karaa marka sida Facebook hore ugu isticmaali jiraan la xiriiri karaa laakiin Facebook looguma talagalin qaybtiisan dadka burcad dadka raba inay mukhaadaraadka ka ganacsadaan ama waxyaabo si sharci darro wadan ku galiyaan ama dadkaas inay isticmaalaan looguma talagalin soo taas waa ta koobaad ay tahay inay fahantaan midda labaad ee saaxiibayaal Facebook loogu talagalay qaybtiisan dadka isticmaalaya inay u adeegsadaan waxa weeye waa Facebook wuxuu rabaa markaad halkan joogto inaanu garanayn meesha aad joogto laakiin in la garanayo cidda aad tahay marka Facebook qaybtiisan kaliya waa laba shaqo ay qabanaysaa ugu horeyn haddii Facebook wadanka ay ka xiran yahay inaad Facebook isticmaasho laba haddii aad rabto inaan la ogaan marka meesha aad joogto inaad Facebook ka isticmaasho laakiin waxa weeye mar walba waa la garanayaa qofka markaa aad tahay haddaba saaxiibil waa labada sababood sababta Facebook qaybtiisan loogu isticmaalay haddaba haddii aad tahay qof journalist ah oo aad tahay qof raba inuu wax ku soo gudbiyo Facebook oo jooga marka meel Facebook ka xiran yahay oo kale ayaa lagu talagalay qaabka inaad u isticmaasho ugu dambeyn waxaan doonayaa inaan isla eegno saaxiibayaal sidee buu qofku Facebook u isticmaali karaa oo internetka madowga isticmaali karaa waxaan hadda isticmaalay saaxiibayaal anigu browser la yiraahdo Tor browser oo ah browserka ugu caansan ee internetka madow laga galo waana ka aan qof kasta u soo jeedinayo oo raba inuu tijaabiyo muuqaalkan dabadiisa Facebook qaybtiisa madow inuu isticmaalo tusaale browserkan aan sheegayo waxaa laga degsadaa daaqad halkan oo taalo website-kan la yiraahdo torproject.org markaad hoos soo degto haddii aad isticmaasho computer Windows oo anigu hadda isticmaalay halkaas aad ka degsan computerkaagu Mac OS hadduu yahay halkaas aad ka degsan hadduu Linux yahay halkaas aad ka degsan haddii telefoonkaagu Android yahay oo aad Android isticmaalayso oo rabto inaad meesha ka gashana halkan ayaad ku dhufan dabadna markaa halkaas aad Androidka markaa ka degsanaysaa soo saas waxa weeye saaxiibayaal waa sida markaad ku access garan kartaan xitaa haddii telefoonkaagu uu yahay telefoon Android ah waxa weeye casha muuqaalkan dabadiisa Facebook qaybtiisa madow waad isticmaali kartaa linkigan markaa Facebook qaybtiisa madow waxaan idin soo dhigi doonaa Telegram channelkeena muuqaalka qaybtiisa hoose description ma soo dhigi karo sababtoo ah dhanka YouTube marka laga eego waxa laga yaabaa in ay inagu qabsadaan oo muuqaalka wada ka saaraan marka sababta awgeed baan linkiga u soo dhigaynin muuqaalka qaybtiisa hoose linkiga waxaan soo dhigi doonaa Telegram channelkeena linkigiisana waxaad ka heli doontaan muuqaalkan qaybtiisa hoose descriptionka muuqaalka markaa intaan ayaan kusoo afmeeraya saaxiibayaal waxaan rajeynaya inaad wax ka faa'iidaan hadday dhacday muuqaalkan like inoo saar haddii muuqaalkan aad wax ka faa'iidin waan rajeynaya muuqaalkan waa dislike garan kartaa muuqaalkan ka xiga intaan ku kulmi doono aniga idinka waxaan rajeynaya khayr wassalaamu calaykum